laakiinse waxa weeye masayrka lagu sheegayo ee lagu dhahayo waa xaasidnimo ku yimaadaa waa inay haweentu ninkeeda dibkiisa jeceshahay meesha ay haweenka kale raggooda ka soo jiitaan midaan waxay jeceshahay ninkeeda wax dhiba inay sirtiisii ka sheekaydo in waxa weeye haweenka kale uga waranto isma oga shaydaana ka qaali noqday maantana waxay ka sheekayn ninkeeda ceebtiisa bas الله جل وعلا وحو دحيا هن لباس لكم وانتم لباس لهن هوeenka adku rago dhab u tiin iyagu dhabaynayiin haye marka ninkii dalka u ahayd ay maanta ka shaqayn gabadha kale u waramaysaaba ama waxay samaynba waxay karkarsan saliid sida meelaha laga shaqayba oo ka dhacdayba indikii la gubo markaas waxa la ormaya way masayrtay war waxa masayr lama yiraahdo jalla wacala uga baqa waxa la rabaa haweentu markay masayrto waa inay ku masayrto qaabka ay ninkeeda ay ku jeclaan lahaa masarka la yiraahdo waa inay haweentu ku dadaasho inay ninkeeda mar walba jacayl ku abuurato jacaylku wax la abuuran karo weeye oo qofku waxa la keensan karo inay haweentu ninkeeda soo jiidato laakiinse in la gubo ama se nafsi la dhaafiyo ama se dhibaato kale lagu sameeyo sida meelaha laga sheego kale inta shayaadiin loo taga la yiraahdo soo jeedi ninka waa iga sii jeedaa naaka uu guursaday soo jeedi haye waxa sallallahu alayhi wasallam tilmaamaya haweenta u tagta waxa weeye man ataa kaahinan fasaddaqa ma yaqul faqad kafara ma nuzila ala muhammad haye qofka u taga ahad kaahin u taga oo waxa sheegay u rumeeya ee waxa weeye kaahinka iyo faralowga u taga saaxir weeyaane waa ku ahadkaas waxa ku gaaloobay wixii lagu soo dajiyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam adugu ma xadii soo jeedi naagta kale ka soo jeediyo aniga soo jeedi war waxa soo masayr lama yiraahdo laakiin gabadha waxa weeye masayrta waxa lagu garanayaa inay mar walba ninkeeda raali geliyo ninkeeda ay soo jiidato ay haweenkii fiicnaa ay qiimaha badnaa sida waxa weeye Aisha radiyallahu anha rabbi raali ka noqday mu'miniinta hooyadood xadiiskii Anas waxa sheegaya xadiiskii Anas rabbi raali ka noqday in waxa weeye rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo ku sugan guriga Aisha raashin loo keenay raashinka awliba laga keenay haweenka kale oo waxa rasuulku qabo Aisha way masayrtay rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa qala ummukum hooyadu waa masayrtay marka haweenku muslimaadka ah way masayrayeen laakiin masayrkoodu ma uusan dhalaynin gurigooda inuu burburo masirkoodu ma uusan keenaynin gabadhu inay ninka wax ku sameeydo Aisha radiyallahu anha laftigeeda waxay tilmaameen xadiiskii Muslim iyo Bukhari ay soo wada saareen in Aisha tiri ma qintu ala ahadin min nisa'i nabi sallallahu alayhi wasallam ma qintu ala Khadija radiyallahu anha waxay tilmaameen Aisha sida uga masayray Khadijo radiyallahu ka noqday haweenka kale oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam qabay uga ana masayrin هي محمد صلى الله عليه وسلم عائشة وحي تلماميسا رسولك صلى الله عليه وسلم إلو بديي وحاوية كشاكين تيدا ولا جيدا أبدي كشاكين تيدا مركاسي وحي كم صيتا وحاوية شاكتانك أو شاكيو صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام محمد مركا وحاوية خديجة صناعي هايد ولا قاسي إيقا شيء ومدو وحاو إجر أي حريري دي ومدو إبني أي إرمي دي عائشة وحوي رضي الله عنها كما يصرحين وحياها قائد دمكين وحوي من سنيان وحوي مؤمنين تويوي وحال الرما مركا هواكو إلى كو ضيران وحوي الرجل أي سوجيتان مروا البعي جعلابان رجل إلى هدود ولان وحياها السوجيتان كما حكمدا إلى نكو وحوي هواتو أي نكي هذا مركز الرالي قريدو oo ay ku raali geliyo Allah iyo rasuulka amarkiisa oo ay marka waxa way hawaantu ku qanacdo jalla wa ala wax xukumay ilaahay jalla wa ala ninka waxa uu amray inuu ninku guursado ay fankihu ma daba lakum min an-nisa mathna wa thulatha wa ruba' ay rabbi asa wa jalla waxa oranaya wixii idin wanaagsan dumar ah laba iyo saddex iyo afar ugu guursada wixii marka aad saddex idin kartiin waad guursan kartaan
ما دام رجع الله جل وعلا أدمره فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة تعالوا وحن كل الله يا ورجع رجعنا الواحد إلى يدينا ما دام وحوي يقول سد الإنيري وحن الله فينا يا وحوي منكو هوانت أو غبو أو دحضي أو روينه متك لا جورسلو ما هو عدالة سماي كرا قبض أو غبو يا قبض هذا أو ربو لبدو هذا ما هو عدالة سماي كرا هذا جوابتها طاي الله أكبر جل وعلا هجورسلو الله بيستو أما صدق يستو أما هفر يستو لكن سهدوسا وحوي أو عدالة درك بغيره هالشي سكين يسكلاسنتو أو وحوت المام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشق صاخب أي أحد كوحوي لبها وين له وأكتيس أي كسبين لبها وين لبها وين قرصي وحوي أنا كل عدالة سمينين متك وإحضى قيامها وحو إيمانيا قربك دعية صنع صعود ماليا مركا إلهي كبغى الرقو أديكنا وحال الربا قبل آد قبطو نرشي كالا دحيد وحبا كبدرين نرشي كالا دحيد هبيك آد بغنطاي معاني نرشي قبل كالا دحيد وحبا كبدرين إن الولاجيرو وإنتي هور أسيوة أمم الربا لكن وحاوية إن قبل دي اللحلة الشيء لقد إلا جرك يلي حرلا وحاوية درعيه متكلو وحاوية أولي وحبا اللي قرسلو هدنا قبل دي الله استئل لوبا وحاكدنا على الله وأذيكنا خيام إلا وعقامه قبلنا المسلمة دا أهنا مسكحنا داوعين أذيك كل الضمرو ورسولك صلى الله عليه وسلم تلماما يا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن يسجد لزوجها حقا نكو أو كمويا وحا كمويا ما يرى رسولك الله أمرنا يا هدان به أحد كالأحد لا أسجوده ربي أيا لا سجود حق وإن لا سجوده ربي يا عبادة إسكا لا سجود كله وحن به لها وأنتم منك لها سجوده أيه لكن عبادة سجود إله أبا إسكاله سبحانه وتعالى وحن مركب ماشا لك فهم إياه حق أي رقو كل يهين دمركا مركب دمرو وحن أي كربا وإن الحق وحن رقنا إلى لدان وردمرو الله كبر جل وعلا أو وحيابها الله الشيغيو أو إسوكو فاريو نكي إسلام تنكفرتي أنو إسلام قطران هايو نكي وناكي لما قرسن كرو هايه ما قرسن كرو